muuqaalkan waxaan kuugu tusaaleynayaa waxa ku dhacay gabadhan Clara. Waa sheekada filimka The Last Letter ama warqadii u dambeysay. Qaybta dambe muuqaalka ka ogow sababta ugu weyn ee wiil hadduu safro looga maarmo ama looga sabro. Warqadii u dambeysay, magaalo yar oo xiliyadeedu si tartiib ah isu bedelayaan, waxaa ku nooleyd gabar yar oo lagu magacaabo Clara. Waxay caan ku ahayd qalbigeeda naxariista leh iyo dhoolla-cadeynteeda ifaysa, taasoo iftiimin karta xitaa maalmaha ugu mugdiga badan. Clara waxay lahayd gabar jacayl qoto dheer u qabtay xagga qorista. Waxa ay ku qaadan jirtay habeenadeedii inay buugagteeda yaryar ku qorto sheekooyin iyo gabayo, iyada oo ku hamiyi jirtay inay maalin u noqoto qoraal lana daabacdo buugagteeda. Clara waxay si qoto dheer u jeclaatay wiil lagu magacaabo William, oo ah saaxiib ay caruurtinimadooda weligooda isgarab taagnaayeen. Waxay wadaageen sirooyin badan, qosollo iyo waqtiyo aan xadidnayn. Xiriirkoodu waa uu sii xoogeystay markii ay ku socdeen waqtiyadoodii dhallinyarnimada ahayd, oo ay u muuqatay inaanay waxba kala gooyn karin. Laakiin markii qalinjebinta dugsiga sare soo dhawaatay, wax walba way isbedeleen. William waxa uu deeq waxbarasho ka helay jaamacad caanka ah kana fog magaaladoodii yarayd. Clara aad bay ugu farxday isaga, haddana shaki ayaa qalbigeeda ku abuurmay. Waxay ka baqday in masaafada ay wax ka beddesho xiriirkooda, in jacaylkii ay dhisayeen uu ku burburo culayska bilowga cusub. Markii maalintii William uu bixitaankiisu soo dhawaaday, Clara waxa ay dareenkeeda ku shubtay warqad qalbi jab ah oo muujinaysa jacaylkeeda iyo rajada mustaqbalkooda. Waxay rumaysatay in xiriirkani uu wax walba u adkeysan karo ilaa inta ay si furan wada joogayaan. Habeenkaas ay warqadii u dhiibtay, iyadoo qalbigeeda uu aad u rajaynayo. William ayaa warqadda ku aqriyay isagoo dhoola cadeynaya, isagoo ballan qaaday inuu soo laaban doono oo uu maalin walba soo qori doono. Waxay wadaageen sagootin aad u qaraaran, indhahooduna ay ka soo dhalaaleen ama ka soo daateen ilmo. Clara way daawanaysay bixitaankiisa. Qayb ka mid ah qalbigeeda ayaa la socday. Dhowrkii toddobaad ee ugu horreeyay ee ay kala maqnaayeen, waxaa ka buuxsamay farxad. Waraaqado iyo taleefano bay isku wadaarsanayeen, iyaga oo dib u xasuusanaya xasuustii ay wadaageen. Laakiin markii uu waqtigu socday, xarfaha ayaa noqday kuwa soo noqnoqda. Clara waxay aragtay iyada oo eegaysa taleefankeeda, iyada oo rajaynaysa fariinaan weligeed imaan doonin. Xilliyadu way isbedeleen. Clara qalbigeedu wuxuu bilaabay inuu qalalo. Waxay ku shubtay shucuurteeda qoraalka ah, iyada oo hindhistay sheekooyin jacayl iyo lumis qalbi ah, iyada oo xanuunkeeda u adeegsanaysa dhiirigelin ahaan. Erey kasta waxa uu ekaa sii daynta qalbigaas. Haddana ma jiraan wax buuxin kara maqnaanshaha William ay ku abuurtay. Xilli galab ah, deertu ay qabow tahay, Clara waxa ay heshay warqad dunideeda dhan burburisay. Waxay ka timid William, laakiin ma ahayn warqadii ay rajaynaysay. Waxa uu wax ka qoray saaxiibo cusub u yeeshay, waayo aragnimo u soo cusboonaatay, iyo sida ugu raaxaysanayo noloshiisa jaamacadda. Waxa ay ku dhammaatay qirasho xanuun badan. Waxa uu dareemay in xiriirkoodu noqday culays, waxaana arrinkan ka celinaya inuu la qabsado noloshiisa cusub. Clara qalbigeedu wuu murugooday markay ay akhrisay erayada. Xariiq kasta wuu ka sii qoto dheeraa kii u dambeeyay. Waxay dareentay inaanan la arki karin, sida haddii jacaylkii ay wadaageen laga dhigay xasuus keliya, isla markii riyooyinkii ay ballan qaadeenna ay kala furfurmeen oo aan qalbijab mooyaane waxba ka soo bixin. Maalmuhu waxay isu bedeleen toddobaadyo. Clara waxay ku dhibaatoonaysay inay hesho nasiixooyin. Midibada firfircoon ee adduunyada ku xeeranna waxay noqdeen kuwa xanuun badan. Waxay soo dhex martay magaalada, iyada oo ay la ildaran tahay xasuus, qosol iyo diirimaad oo hadda laga dareemayo dhawaaq fog. Intii ay cidlada ahayd ayay sii wadatay inay waxyaabo badan qorto, iyada oo murugadeeda ku shubaysa buugaagteeda. Sheeko kasta waxay noqotay mid ka tarjumaysa qalbigeeda jaban, oo ay ka buuxaan jilaayaal si qoto dheer u jeclaa, laakiin ka sii lumay. Hadalkeeda ayay isku dayday inay ku fahanto xanuunkeeda, si ay u hesho hab ay kaga bogato. Habeen fiid ah oo roob da'aya, iyadoo fadhiisatay daaqadeeda, ay William u qortay warqad kama dambays ah. The Last Letter ma ahayn isku day loogu doonayay inay dib u soo celiso, ma ahayn isku day ay rabtay inay calaacal u qorto,
balse waxay ahayd sagootin jacaylkii ay horey u qabeen. Waxay uga mahadcelisay xasuustii farxaddii uu soo geliyey nolosheeda, iyo xitaa haddii ay hadda hareereeyeen khasaare. warqaddii bay xirtay iyada oo ku riday bashqad uu magaciisa ku calaamadsan yahay, iyada oo aanay weligii soo diri doonin jawaab. Xilliga guga soo socda, Clara qalbigeedu wuxuu bilaabay inuu hagaago, inkasta oo si tartiib tartiiba ay wax walba u dhammaanayeen. waxay ku heshay raaxo qoraaladeeda iyo quruxda deegaankeeda ku xeeran. Inkastoo ay mar walba xambaari lahayd xanuunka jacaylkeedii ugu horeeyey, haddana waxay baratay inay ku dhegto casharadii uu keenay sannado kadib, iyada oo hor istaagtay dad tiro yar markii ugu horeysay ee ay saxiixday buuggeedii. waxay ogaatay in qalbijabka uu qaabeeyey siyaalo aanay weligeed filayn. sheekadeedu waxaa la dhacay kuwa kale, iyada oo duubtay cajalado khibrad iyo dareen wadaag ah. socdaalkeedii bogsashada waxay ogaatay in jacaylka xitaa marka uu lumo uu dhiirigelin karo, rajo iyo adkaysina uu keeni karo. buugaagteeda waxaa sharfay xasuusaheeda, waxaa magacu yeelay xusuusteeda oo kaga tegay William. maahan keliya dhanka xun, laakiin sida cutubka sheekadeeda, iyada oo nafteeda xusuusinaysa in xitaa qalbijabka ay horseedi karaan bilow qurux badan. sheekadan waxaa la dhahaa The Last Letter, ama warqaddii ugu dambeysay. sababo ayaa jiraan. haddii wiilu kaa fogaado ay ku kalifayso, oo ay tahay adiguna inaad ka sabarto. Number 1, waxaa isbedelayaa asxaabtiisa. waxaan si normal ah u bedelnaa mar walba oo aan tagno environment cusub, inaan la qaybsano dadkaas meeshaas joogaan, ha ahaadaan rag iyo dumar. waxaan markiiba bilownaa in maskaxdeenu ka fikirto dadkan iyo sida iyaga oo kale aanu noqon lahayn. waana tan saamaysay William. marka uu ka tegay asbuucyada ugu horeeyey, wuu soo raadin jiray, warqado ayuu soo diri jiray, waxyaabo qurux badan ayuu soo qori jiray. laakiin markii dambe wuxuu bilaabay inuu la qabsado dadkaas, sidaasna ay uga baxday qalbigiisa. Clara wuxuu samaystay saaxiibo cusub oo dhow, oo reer magaala ama kuwa ugu dhow, kuwa oo ka mashquulinaya howlahaaga. waxaana taas ugu wacan dareemaha uu isagu siinayo, maadaama ay ku cusub yihiin. wuxuu gelin doonaa dareemo badan, wuxuu isku dayi doonaa inuu fahmo iyaga, waana midaas. 3, inay mashquuliso waxbarashada ama shaqooyinka una fokus gareeyo iyaga, kadibna sidaas aad adiga qalbiyadooda uga baxdo, isagoona bilaabi doona inuu kuwa cusub la qabsado. kadib haddii ay adkaato inuu waqti helo, si fudud ayaad uga baxaysaa amaankooda. walow la tilmaamo inay beddesho lacagta dadka, sidaas darteedna hadduu qof lacag muhiimad siiyo, liiska waad ka bixi doontaa. So I hope inaad dhammaantiin fahanteen mawduucan. ha ilaawin inaad like siisaan, sidoo kalena aad nagu soo biirtaan muuqaaladayna xiga intaynu ku kulmayno. amaana Allah.